saaxiibayaal waxaan soo gaadhay magaaladii Salaxley imanka halka iga dambeysay weeyaan imanka yar ka dibaan galaya magaalada information-keeda muuqaalkeeda xagga sare intaba waan idin wadaagi doonaa waxaan leenahay aynu wada socono dhamaan magacaa واي عثمان وأدر واحد يشكتها وقت جي سلاح الأساسي. يا فرتكي به. كون سجال بقول له يا فرتكي. أدو أنت أسبقنا تشوكت. وحيد مو يعني كان إن بدين بتشوف. أديك الدقة دو إمسا. هو سجاشن كسوقة. سجاشن ويان. واي مركي كوباد الأساسي مجرد سلاح لي وتشوكت. مركي كوباد. لا بس لو سمعت أفر سمعت بنانو. واي. كل قارئ. sidoo kale waxa magaalada igu soo dhaweeyay Cabdiraxmaan oo ah culimada magaalada waxaan iga warrami doonaa bal waxbarashada Salaxley iyo heerarka kala duwan ee soo martay alxamdulillah kullee Usmaan Bakashiki waxbarashadii iyo heerkii bariga hore markaan ku soo dhawaado waxaan ka sheekeyn karaa horta waxbarashada Salaxley intii bilowgeedii aasaaskii laf dhabarta ahaa marka laga tagay qaybta macaamadaha iyo Carabiga oo ka sheekeeya Usmaan waxay soo bilaabantay lixdanaadkii baa laga dhisay iskuulkii ugu horeeyay oo ah iskuulkan hoose dhexe imika bariga markaa koobi lixdii baa la dhisay dugsiga labadii fasal horeeyay la igu yiri saan maqlay dugsiga boordanka qaybta hoygaana waxa lagu daray koobi lixdankii saddex kilomitir baa laga dhisay oo ah imika ku dhisan saddex kilomitir waxa sii jiray ilaa 60 arday 70 arday meelaha sax iskuulkaasi markaa wax badan buu soo kordhiyay waxbarashadii sababta dugsiga loo sameeyay waxa ahayd iyadoo ay ahayd deegaan xoolo dhaqato ah ama reer guuraaya dibadna reer guuraagu si kale kuma baran kareen waxbarashada ilaa ay helaan hoy ama dugsi boordan ah sababta loo aasaasay bayna السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. مقعد ايش؟ والله المقعد وحلا له محمد حسين. واي محمودو دقمدينا Salaxley waxay caan ku tahay meeshay kartaa. ها. اي اللهم صل على محمد دقمدينا Salaxley waxay caan ku tahay sida diinta. ما شاء الله. diinta iyo wanaaga oo ay isfarto maantana iska reebto. ما شاء الله. waxay kaloo magaranaysaa caan ku tahay xoolaha nool iyo magaranaysaa iyo shaqada sidoo kale waxa la sheegay dadka reer Salaxley in dad wada soo dhaweynayeen dadku waa aad iyo aad taas aad waan soo dhaweynaa socotada waan u roonay dadka qariibka waan soo dhaweynaa haddaba maanta anigu marti baan idin ahay waan idin yimid neef mooyaan kala noqon maayo waan ogol lahay oo neef iyo in ka badan ba waan laga helayaa waayahay horta dadkii oo ka gashaday reer Salaxley Mustafa maanta waxaan ku yiri neef soo dhaweyntii la kama hayo weyn sidee marka imaka aniga iyo Mustafa neef baan loo qalayaa waan sii soconaa marka maanta aniga hadalkayga hilib ku cunaysaa maanta Soomaaliya hilib ku wala maanta waliba neef hilibku deew kala yaryariyay neef dhalo macal beerkii macal khaami waxa soo dhanday waxay nagu yiraahdeen wallahi ilaahay ha karaameeyay maanta hilibkiinu meel buu saaran yahay kulay imaka saacad waxaan filayaa waa labadii duhurnimo imikun baa la bilaabayaa caawa maghribkan insha Allah markaan ka ku ridno toos ugu baxaynaa marka aad iyo aad waa saaxiibayaal aniga deeso horta in yar baan ku tarsanayaa aniguna aniga dee soo dhaweyn fara badan baad iga haysi waayo magaalada ninkii ku dhashay baan ahaa anigu exactly ninkii magaalada dee ma garanaysaa dee saaxiib wax kala ku soo kaxaysayba imaka badana dadkan xataa wareysiyadan ka qaadayay dad isaga ay magaranaysaa garanayaan buu ahaa aad iyo aad maadaama YouTube ku cusub saaxiibo yar xishoonaya ma inta waa loo galay marka
laakiin qis yarna aanu yar sheegay marka laga muulid ahaan adiga laguma moodoba nin cusubba wallaahi niman badan oo garanayo dhex fadhiistad dhaanta way fuliyo kale oo fara badan insha Allah waan sameynaa asxaabta waxaan leeyahay videogani haddii soo gaadho subscribe like share lana wadaag asxaabtaada gaariga imika naga dambeeyay arkaysan wuxuu ka soo baxay Hargeysa waa lagu shaqeystaa Soomaalidu gaari si loogu talagalay ay si kale u isticmaalaan marka waliba ninkan gaariga isagoo cusub u iibsan wuxuu iibsaday sugay inta noqsaan noqonay gaariga xagee toban baa laga fiirsanayaa awshiisina uu fiijiinka kaliya ma socday maxaa tiri sheekhay waxaan ku yiri doorta taariikhu way farbaday way marka hore silax la tegay bal may waxaad doonayaa inaad iga waranto wadadan silax la soo gashaa wadada cad laba dawladood oo midna Ingiriiskii yahay midna Talyaanigii ayuu Talyaanigu bilaabay way dabadoo uu ka qabsaday Ingiriis baa qabsaday way xaabistii Talyaaniga iyo shacbigii ayuu ku sameeyay way ilaa halkaas ay Nairobi ka gashaa wadadan in bakalan ka soo baxday Nairobi toos u gashaa halkaas ay toos uga gashaa waqtiyadii ay sida ahaan jirtay adigu ma joogtay joogina markaa waxaan filayaa dhalaan baan hada waan jiraan laakiin wad garanaysaa way sheekada saasan kaga warhayo saaxiibayaal muuqaalkii halkaas ayuu gabagabay noogu yahay tan iyo mar dambe intaan hawada ku kulmi doono waxaan idin leeyahay bye bye